ninka sinaystayow ama gabadha sinaysatayey ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydiiso halis baad ku sugan tahaye ilaahay waxa uu yidhi subxaana wa tacaala ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ilaahay waxa uu yidhi subxaana wa tacaala ha u dhowaanina sinada waa foolxumo iyo ceeb weyne waddo la maranayadaa ugu liidatee walaalkayga muslimkaayow iyo walaashayda muslimadaayey sinadu maaha wax fudud waxay ka mid tahay dunuubta kuwa ugu waaweyn waxaanay ka mid tahay waxyaalaha la ysku ciqaabo ee la ysku halaago ilaahay waxa uu yidhi subxaana wa tacaala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ilaahay waxa uu yidhi subxaana wa tacaala ninka iyo ruuxa dumarka ah ee ceebta sinada ku dhaca garaaca oo mid kastoo ka mid ah 100 jeedal ku dhufta naxariisiyaydan qabanin markaad diinta ilaahay oogeysaan haddii ilaahay iyo aakhira aad rumaysan tihiin waa laydin abhiyey ilaahay u hoggaansama oo ooga marka la garaacayo goobjooga u ahaadaan koox muuminiinta ka mid ah haddaba walaalkayga muslimkaayow iyo walaashayda muslimadaayey kuwa 100 jeedal laga jarayo waa kuwa aan guur hore soo marin haddaba qofka hore u guursaday ama guur hore soo maray ee sinaysta isaga dhagax baa lagu dilayaa qofkaas dhagax ayaa lagu dilayaa rasuulku waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam rasuulka ku salli rasuulku waxa uu yidhi qofka muslimka ah ma banaana dhiigiisu qof dhahaya laa ilaaha ila allah maxamedow rasuulullah ilaa 3 mooyaane waxa ugu horeeya qof guur hore soo maray qof hore u soo guursaday oo guur xalaala soo maray kadibna sinaystay qofkaas dhiigiisu banaan yahay oo waxa lagu dilayaa dhagax baa lagu dilayaa qofkaas ilaahay subxaana wa tacaala ka cabso walaal qaali beri ka maalin ayaad ka shalayn doontaa haddii aad sinada iyo qurunkaad kaga bixi weydo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa lagu celin doonaa gooraad dhima doonto oo nafta ay kula gaari doonto ilaahay baa og walaal qaali ilaahay waxa uu yidhi subxaana wa tacaala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ilaahay waxa uu yidhi ninka sinaysta waxa uu guursanayaa gabadh sinaysata ama gaalad ah gabadha sinaysata waxay guursanaysaa nin sinaysta ama nin gaal ah muuminiinta arrinkan waa laga xaaraantimeeyey inay gaalad guursadaan ama qof sinaysta oo sinada lagu yaqaano oo aan dhowrsoonayn haddaba walaal qaali maanta sinadii faan baynu ka dhiganay meel walbo la joogo iyo waqti walbo la joogo sinada waa lagu faanayaa meel walbo sinada lagu samaynayo indhahaynu ka daawanaynaa oo waynu iska dhaafaynaa balse sinadu ma fududa waxay ka mid tahay waxyaalaha la isku halaago maanta haddii aad sina samayso waad ilaahay subxaana wa tacaala aad u noqon weydo ciqaabteeda waad helaysaa maanta in soo xanuun oo aan la aqoon ayaa sinada laga qaaday 100 qof oo sinaysan jiray oo waxaa ku dhaqmi jiray ayaa maanta qoomamaynaya rasuulku waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam laa yasnii saanii xiina yasnii wa huwa muumin rasuulku waxa uu yidhi qofka saaniga ah ma sinaysto isagoo muumin ah iimaanka laga siibaa marka uu sinaysanayo qofka muuminka ah xilliga iimaanka qalbigiisu ifinayo ee uu ku jiro ma sinaysto marka iimaanka qalbigiisa laga siibo ayuu sinaystaa oo fawaaxishadii iyo qurunkii ayuu ku dhacaa rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi habeen waxaa ii yimi malaku jibriil iyo miikaa'iil markaasaan raacay markaan soconnay waxaan u nimi meel sida moofada oo kale u samaysan oo weyn nebigu sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi meeshaa waxa ka baxayay cod iyo qaylo nebigu waxa uu yidhi meeshii ayaan fiiriyey oo aan eegay meesha waxa ku dhex jira rag iyo dumar qaaqaawan oo aan maryo sidan hoostooda waxa ka baxaya holac markuu holacu soo gaadho way qaylinayaan
rasuulku sallallahu calayhi wasallam waxaan idhi buu yidhi, malaku jibriilow, dadkan sidan loo cadaabayo ee bohoshan ku jira ee rag iyo dumar qaaqaawan ah ee holacu la kacayo ee gubanaya ee cabaadaya maxay yihiin? Markaasuu malaku jibriil yidhi, waa raggii iyo dumarkii sinaysan jiray. Markaa ciqaabtan ayuu ilaahay marsiinayaa. subxaanallah. Maanta waynu ognahay in sinadii fudayd laga dhigtay oo meel walba ay ka socoto. Haddaba sinadu fudayd maaha, waxay ka mid tahay dunuubta kuwa ugu waaweyn, waxaanay ka mid tahay waxyaalaha la isku ciqaabo ee ilaahay subxaana wa tacaala kuugu cadhoonayo. Imisaa sinaysan jiray oo maanta ka shalaynaya, imisoo xanuun oo la aqoon ayaa sinada laga qaaday. Haddaba walaal qaali, meel walba ay sinadu ka socoto ha fiirsan ee wax ka qabo. Asxaabtayda qaaliga, waa anigoo ah Maxamed Wardi Cali oo idin leh muuqaalka sii sheeri gareeya. Waxaa laga yaabaa walaalo badan oo muslimiin ah oo shaydaanku u qaatay inuu ilaahay ku soo hadeeyo. Adigana ajar weyn bay kuu tahay walaal. Waa inooyo muuqaalka xiga insha Allah.